kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena cusub ee Runmal Media alaaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa wararkii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu saameynta badan qodobada maanta ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya xogta heshiis halis ah oo ay wada galeen Itoobiya iyo Imaaraadka haddaba heshiiskaasi muxuu ku aadan yahay maxaa xilligan ku soo beegay muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan waxa sidoo kale muuqaalkan inta aad daawanayso ku soo gudbin doona Masar oo beenisay warar lagu baahiyay baraha bulshada ee la xiriiray boohida badda Itoobiya haddaba Masar waxay ka dhahday halkan kugu soo gudbin doona waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona tirada dadkii ku geeriyooday fatahaadii iyo roobabkii mahiigaanka ee ka daay dalka Brazil oo korortay xogaas iyo wixii kale nagu soo kordho inta muuqaalka daawanayso iyo ku soo gudbin doona haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambalelkana furo si ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii subscribe inoo tahay muuqaalka noo share garay like inoo saar si uu gaaro asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabno waxa xogo laga helayaa heshiis halis ah oo ay wada galeen Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Itoobiya warbixino sirdoon oo cusub oo soo baxay ayaa daaha ka rogay heshiis halis ah oo xukuumadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ay la gashay dawladda Imaaraadka Carabta oo qalalaasa ka wada geeska Afrika iyo sidoo kale bariga dhexe heshiiskan ayaa waxa uu horseeday xero militari oo si aad ah loo qalabeeyay taasi oo ku taala gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan meel u dhow xuduudda Suudaan halkaasi oo la sheegay in lagu tababaro dagaalyahanada ciidanka ee RSF iyadoo ayna ognahay in maleeshiyaadka RSF ay weerar ba'an ay ka geystaan gudaha dalka Suudaan iyagoona mararka qaar si gaar ah u bartilmaameedsada dadka shacabka aan waxba galabsaneyn shalay ayaa ugu dambeysay markii dagaalyahanada RSF ay weerar ba'an ay ka geysteen gudaha dalka Suudaan halkaasina ay ku dileen ugu yaraan 28 qof halkaas 31 kalena dhaawacyo kala duwan uu soo gaaray saldhigan oo ku yaala gobolka Fog ee Benishangul ayaa la xaqiijiyay inuu qaadi karo ilaa 10,000 oo dagaalyahano tani waxay noqotay cadeyntii ugu horeysay oo si toos ah u muujinaysa kulug lahaanshaha Itoobiya ee colaadaha sokeeye ee dalalka dariska la ee Suudaan ila wareejiyo gaaraya ilaa 8 oo ay ku jiraan saraakiil sarsare ee dawladda Itoobiya ayaa xaqiijiyay in dawladda Imaaraadka Carabta ay heshiiskaasi ay la gashay xukuumadda Abiy Ahmed waxaana la xaqiijiyay in Imaaraadka Carabta uu bixiyay dhaqaalaha lagu dhisay saldhigaasi militari ee ku yaala dalka Itoobiya kaasi oo la sheegay inuu qaadi karo ilaa 10,000 oo dagaalyahane falanqeeyaasha arrimaha gobolka ayaa aaminsan in daafurka saldhigan uu iftiimanayo sida dalalka labada sano jirsaday ee dhinacyada Suudaan kaasi oo sababay dhimashada 10,000 iyo sidoo kale barakaca in ka badan 12 milyan oo qof uusan hadda ahayn mid u dhaxeeya laba generaal oo kaliya balse uu noqday goob ay ku loolamaan awood shisheeye Imaaraadka Carabta waxa lagu eedeeyaa in uu mar walba uu garab taagan yahay dagaalyahanada RSF ee xasuuq baan ka geysta gudaha dalka Suudaan iyadoo uu marinayo hubka iyo sidoo kale saanadaha ee dagaalka ee Chad Liibiya iyo sidoo kale Uganda inkastoo awoodu ay marar badan iska fogeysay eedeymahaasi oo sababay in Suudaan ay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto dalkaasi qaliijka ku yaala sawirada dayax gacmeed lagu qaaday aaga xarunta ayaa muujinaya dhaqdhaqaaq xoogan oo bilowday bishii Oktoobar iyadoo dabayaaqadii November la dhisay in ka badan 640 teendho gawaarida xamuulka ayaa sidoo kale lagu arkay iyagoo ciidamo cusub u daadgureynaya magaalada Asoosa oo qiyaastii 53 kiiloomitir u jirta xerada Maxamed Xuseen oo ah falanqeeye siyaasadeed ahna agaasimaha shabakada xuduudda aadanaha ee Darfur waxaana uu sheegay in dhismaha xeryahan ee Itoobiya ay qayb ka yihiin qorshe balaaran oo Imaaraadku ku taageerayo RSF dhismahan saldhiga militari ee laga dhisay dalka Itoobiya isla markaana qarashka lagu dhisay ay bixisay sida bayaan soo baxay lagu sheegay Imaaraadka Carabta ayaa wax uu horseedi karaa khilaafka cusub ee Imaaraadka Carabta iyo jahwareerka uu ka abuurayo dalalka geeska Afrika iyo sidoo kale bariga dhexe iyadoona Imaaraadka Carabta xilligan lagu eedeynayo inuu yahay dalka kaliya ee u taagan in la xasuuqo shacabka reer Suudaan isla markaana si aad ah lagu sheegay in ay tahay arintaasi wax laga xumaado
falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ayaa waxay sheegeen in arrintan ay dhalin karto mar kale in dagaalka dalka Suudaan uu sii laba kacleeyo maadaama Imaaraadka Carabta ay si aad ah u qalabeynayaan maleeshiyaadka RSF ee xasuuqa ka geysanaya dalkaasi Suudaan iyadoo la og yahay Suudaan sanadihii la soo dhaafay waxa ka dhacay iyadoona barakac badan oo halkaasi ka dhashay sidoo kale halkaasi waxa ka dhashay gaajo iyo sidoo kale xaraada kadib markii dadkii ay waayeen hoy ay ku noolaadaan iyo sidoo kale goobo ay ku shaqeystaan maadaama RSF mararka qaarkood si gaadmo ay u beegsanayaan dadka shacabka aan waxba galabsan markana haddii aan adno dalka Masar mas'uuliyiinta dalka Masar gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi ayaa beeniyay warar lagu baahiyay baraha bulshada ee la xiriiray yaboohida badda cas ee Itoobiya dowladda Masar ayaa si adag u beenisay warar soo baxaya oo sheegaya in Qaahira ay soo bandhigtay Itoobiya in ay ka caawiso helitaanka marinbadeed ee badda cas si looga bedesho dabacsanaan iyo sidoo kale tanaasul laga sameeyo arrinta muranka badan dhalisay biyo-xireenka webiga Niil mas'uuliyiinta dowladda dalka Masar oo la hadlay wakaaladda wararka ee rasmiga ee MENA ayaa ku tilmaamay wararkaasi in Masar aysan gacan ka geysaneynin sidii dalka aan badda lahayn uu u heli lahaa marinbiyood dowladda Itoobiya ayaa waxa ay hiil iyo hooba ay ku bixisaa sidii ay u heli lahayd bad iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed mar walba oo khudbeynayo oo khudbadiisa ku soo qaato in dal dhan ay ku nool yihiin malaayiin shacab ah aysan marnaba macquul ahayn in ay badda la'aan ay ahaadaan wuxuuna mar walba uu ku hamiyaa inay heli doonaan badda si halkaasi ay dhaqaale ay ugu soo saaraan mowqifka rasmiga ee Masar ee ku aadan khilaafka biyo-xireenka waxa uu noqday mid aan waxba iska bedelin hadalkan ayaa imaanaya iyadoo wargeyska The National ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta uu toddobaadkii hore daawacay warbixin sheegaysa in Masar toddobaadkii hore ay u gudbisay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed dalab cusub wargeyska ayaa soo xiganaya ilo wareejo dalka Masar waxa uu ku tilmaamay in mas'uuliyiinta ugu sareysa ee dalka Masar ay dalab ay u gudbiyeen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed kaasi oo ku aadanaa in ugu yaboohana badda cas ee Itoobiya ay badda u hesho sida warbixinta lagu yiri Itoobiya waxa laga doonayaa in ay tanaasul ay la sameyso isticmaalka biyaha Niil isla markaana ay ka waantoodo in ay ciidamo military soo dhoobto badda cas warbixinta ayaa sidaas ku dartay in soo jeedinta sidoo kale lala wadaagay Mareykanka xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu dhawaan ballan qaaday inuu dhexdhexaadin la geli doono heshiis dhexdhexaad ee labada dal Masar iyo Itoobiya ayaa muddo ka badan 10 sano ku jirtay loolan adag oo salka ku haya dhismaha biyo-xireenka ee webiga Niil halkaas oo ku kacday lacag $5 milyan oo dollar lagana dhisay isha ugu weyn ee webiga Masar oo kamid ah dalalka ugu biyaha yar caalamka ayaa ku jira webiga Niil ee ku dhawaada 100% si ay u daboolaan baahiyadooda biyaha macaan waxayna biyo-xireenka u aragtaa mid khatar ku ah jiritaankeeda dhanka kale Itoobiya ayaa diiday inay dhinto xawaaraha buuxinta biyo-xireenka ama ay kordhiso qulqulka biyaha u gudbiya dhanka hoose ee Masar helitaanka marinbadeeda ayaa ah kan istaraatiijiyada ku qoran oo Itoobiya ay dadaal badan ay ku bixinayso kadib markii ay noqotay dal aan bad lahayn kadib markii la tiriya ay madaxbanaanideeda qaadatay in ka badan 30 sano ka hor labada dal midna weli si hufan uguma uusan hadlin warbixinta The National marka laga reebo beeninta soo baxday iyo saraakiil u hadlay dalkaasi Masar markana haddii aan aadno waxa korortay tirada dadkii ku geeriyooday fatahaadii iyo sidoo kale daadadkii xoogana ee ka dhashay dalkaasi ee Brazil inta la xaqiijiyay 46 qof ayaa geeriyootay 11 qof ayaa sidoo kale lagu laayahay daadadkaasi iyadoo mas'uuliyiinta dalkaasi Brazil ay sheegeen inay wadaan gurmadkii u dambeeyay ee lagu samata bixinayo dadka ay saameeyeen fatahaada iyo sidoo kale roobabka mihigaanka ee ka da'ay dalkaasi Brazil roobabkan iyo sidoo kale fatahaadaha ayaa waxay burburiyeen buundooyin muhiim u ahaa dalkaasi Brazil isla markaana fududeynayay isku socodka dadkii gaadiidka wadooyin badan ayaa sidoo kale waxaa la soo warinayaa in biyuhu ay fadhiisteen isla markaana burbur xoogan soo gaaray taasi oo go'doomisay isku socodka dadkii gaadiidka
muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxaa la arkayay sida gurmadka degdega u socdo isla markaana loo baadigoobayo dadka biyaha dhexdiisa lagu leeyahay. waxaa sidoo kale ka dhashay daadadkaasi iyo sidoo kale roobabka mihigaanka ee ka daay dalka Brazil burbur hantiyadeed. wixii xogay ku soo kordhana muuqaaladeena xiga iyo idinkugu soo gudbin doona haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena. fadlan subscribe inoo dhig gambalelkana fursi ku soo gaaro muuqaalada kale xiga. haddii subscribe inoo tahay muuqaalkana share garay laakiin oo saar soo gaar asxaab badan ku maasantahay daawashadaada.